بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان dhegeystayaasha iyo daawadayaalka geega haddii ilaahay idinma ku hadal doonay barnaamij gaar oo ku saabsan allah naxariisade halgamaagii weynaayey cabdulaahi maxamed idris oo xalay saacadda markii haytay muqdisho qiyaastii 3 sac hamiinimo ka dhimadi magaalada muqdisho allah naxariisade marka waynin suurtagal inuu wareysano anigoo ah cabdulqaadir abubakar sheekh oo aalam haddii yaarayo barnaamijyo ka saabsan dhaqanka suugaanta iyo taariikhda dadka koonfur galbeed dego gaar ahaan koonfur galbeed dhammaan koonfurta soomaaliya waynin suurtagal inuu wareysano afhayeenka guud jaaliyadaha yurub master axmed cabdulqaadir maxamed axmed sagaarey oo geegin suurtagal inuu wareysado runtii barnaamijkan way ka saabsanya khaasatan taariikh nololeedkii iyo walaa usakoogiya insha allah haddii la hadamo cabdulqaadir ha ka dhawo barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون قدومية ما هتصنت runtii arag muhiim aan aragay inuu ku hadalna Cabdullaahi Maxamed Idris Lesto oo haylan runtii taariikh leh Soomaalida dhaqtiya iyo khaasatan koonfurta iyo dadka keegan man eedan ma hadsanta cabdulqaadir maxamed axmed jibsagaay runtii maadaama ay inta dadka halgamayaalka koonfurta dhammaan inta badan hala shaqayti dad badan maxamed cabdullaahi leestana ka mid iyo halgamayaalkii koonfurta soomaaliya wala badan ha ku shaqeeya siyaasadda bal ninka sheekay korta taariikh nololeedshii iyo maaragtay inta adig kakasaas walaa iyo maaragtay iyo waqti adig kulanteen iyo sifayaalka kakasaay iyo maaragtay dabeecada usilahaaya بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مقلمات إلهي نحرس والكان عبد الله محمد إدريس ليستو قرابدي إهلكي جودهان غير مدي إدريس يو المعذرتي يو أصحابتي يو جودهان صومالي خاصة لما إيد صاحب هاين ولا رجالي برهان دالباس وكميد هاي دتكي رنتي إيد صاحب هاين يو بطار حاج محمود بربار دضم ما يجري رنتي مش إيد نسك نوعين وأصحاب هاين يو دمان إهلدي سكولي معنا أنت أسيان Cabdullaahi Maxamed Idris Lesto horaantii kontomaadka may ka dhaladay Alto Juba Baydhabo runtii may ku mid ahay family reer Madi Idris awjeen runtii ka saasan lama may ahay tib Talyaani marka dambe baarlamaanka nagadi baarlamaanka 67 gal ee Madi Idris ilaa inaaraysa runtii may ahay curadkii Madi Idris runtii Cabdullaahi may ku mid ahay dadkii oo ku bilaabay iskoolkii oo Badr Bitoni lanka la rajari Talyaaniga iskoolkii jay runtii dad badan asxaabe iskoolkaas ku bahi suuna ma ka jaray ardayda nasiib u ngalatin iskoolkaas dhikadan mayna ku mid ahay iskooladan ka faylan runtii Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya kudib Cabdullaahi 70maadkii yamayba ku mid nagaday askarti beedka la rajari dhalinyaradii oo marnay ciidamada qoradaan ka jaray askarti beedka markii dambana maylan qaaday 1971 Moscow Russia lan qaaday nimanka hanti wadaag ahay meela ma hirooga ilaa 1975 runtii Cabdullaahi muddo dawladda shaqay kadib ku tabi mayba nguuray ama degay muddo badan ka noolay Saudi Arabia Cabdullaahi waliyaalaha uma ka xasuusadaan ilaahay naarisa may ku mid lan dulmadiid ahay runtii lan oo shakhsiyad buut leh runtii ana marna khaadima aan hay marna hasla shaqayni marna may hay lan eedina squar qabna runtii nooc usubsana am ilaahay usan abuuray dad yar leh sababtoo lan iska kalsoon oo xambaarsan dhaqankaani afkaani iyo dadnimadaan iyo ka faanahay marka runtii waliyadku dhex galay maadaama aad aragtay lan isla shaqaynaya hayn isla markaasna maaragtay lan caawi oo khaadim ayaa hayti marka goormeynka horeeyay oo ka kulantay danaha armo bulshada ama dano armaha guud koonfurta Soomaaliya la ka shaqeeyo ama kulantay ama in ka horeeyay qiyaas ahaan may ku mid ahay Cabdullaahi dadkii xisbigii SDM markii Sacuudi la ka dhisi Professor Umar Sheikh Usmaan Mayow ilaahay naxariis oo engineer Saalax la dhaladi markii ururkii SDM dhalaayo Sacuudi ka suubiyan Xasan Shashax Ali Xaaji Mukhtaar runtii dadlan koobo korneeyadan far badan Cabdullaahi may hay dadkii ururkaas SDM tiyo dawladda militariga jarta Soomaaliya sheegna ku mid ahay yani dadkii may hay dadka ka abuuray in dawladdu nagati dawlad oo dhigi doonta
dadka dhulkan degan inay taladan walaal suubsado korana kaliya ay walaal kamidoo kor xisbigaas SDM ta usii barsoor Umar Sheekh Usmaan Shaanan ma xasuusida isugu curubaha ka degi oo runtii la dhoomadaayo maarna dawladda militarigan wabiyada waqtigii oo la qoray jiray baaqyadii xilligaas 87 Cabdullaahi Sacuudiga ma ku sheenay mabaadi'daas mayna nasiiban waladees dadka xataa ma ka jaray golaha dhexe SDM ta ka jaray runtii ana markaasa Cabdullaahi Baradi SDM macnaha xisbigaas SDM dad badan la ku yaabay in maaragtay dhalinyaro hadda inkastaan SDM meel lahan gaabay SDM waa Somali Democratic Movement urur oo mahay oo xisbi siyaasi ah mayna la kasoobi Haram al-Sharif Maki Madiina Jidda la kasoobi kudibna wakiilo soobsaday may ku qayb qaaday shirkin kuray oo xisbigaas u soo qayb qaaday may bahay Rome Italia lang Nocolino Mohamed Erow oo aadan Cabdul Usmaan xagga sharciyada la taliyay haada jaray Nocolin oo asal iyo dhulkun deegaanadu ku jeeda oo markii dambana maaranay Rome aan badanaay lankaasa maaranay xisbiga meelas wakiil aan ku nagadi USCD markii meel ka shiraayeen Cabdullaahi tamay ka jaray dadkii oo golaha dhexe oo meel landira la fadaay ka jaray markii la isqeybin ismaan bay dhinaga Soomaali afkaarta samay ka abuuray dhulkun ilaa Kismaayo ilaa Baardheer ilaa Baydhabo ana markaas ana wallan dhalinyareen ah walna fahansan ya ogaay in arintun iyo wadan waana kariyaan marka runtii lan oo hal abuur leh oo geese dhaqanka iyo dadnimadiis iyo afyo jinsiyadiis iyo walowsan dhaladii og waana ka faanahay runtii Cabdullaahi ka xisbigaas SDM aad sheegtay marka ay gudoomiye ka hay usina role ahaan ama boos ahaan intee ku hay xisbigaas Professor Umar Sheekh Usmaan oo Torino wala ka baradii oo runtii lan professor markii dambe marka dhimada doono la ka dili doono runtii argagax yala ka suubi marka pressure wala ka dhii saasa ka dhimaday ana markii si dhimaday roogi runtii waan khaadiman ahay professorka Leicester ma ka jaray golaha dhexe xisbiga ka jaray markii dambena Leicester ma xisbiga ma ba gudoomiye lan dooraday markii dambe Dr. Abdi Muuse Mayo oo lawyer wing oo reed afgooy oo haddana runtii degan Switzerland Geneva oo runtii taariikh weyn ka leh dhulkan Umar u si bedeli geek leh ta la hadalay yani taasiid Leicester inuu isku taasiyay weeri geek Switzerland Geneva Dr. Abdi Muuse Mayo abukaatu weyn ahay xisbiga SDM ta markuu si la wareegi golaha dhexe u si dooradeen waana runtii meel weyn ajay yani caalamka oo dhan iyo tusi in xisbi dadku matalo حقوقدي أن ندوده حقوقدي سياسية يتنبش يتنديجا عنها جغرافيكال بندوده هاي مركب لاستا مرنمكو عاجزنا مرنمكو هرنا إلا وسحنون كهدوسن دم ديكو كليو حتى معمولون دم ما يبقوا منا كذا إلا تريالك حق سياسة هاي معمول كشريف حسن إيكي عبد العزيز بارمه بلشة أنا كذي أنا ما يبقى كحسوس ذي مركي حتى أو أبارة ديان أو هنتي أو دالكلك وضر هوري dadka figariska farakutiriska oo walgorodka arlaadi rooya ka jari oo baahad ee dhibaatadii restore hope operationska markii oo unitaf unisom yani dad badan xasuusun runtii waan raadanay la tawalun hilmaamana ma wal badan ku qornay Cabdullaahi may bahay lanka oo ka faracdeeg inuu dhulkan ku tabna dhibaatada dhiyaasi oo dhan iyo ku turjumay may hayni cajalada oo runtii isugu ooyo isugu marna dadka dhibaataysan gargaaro ana marka may gabeehan lankasta oo han fadheena taariikhdiis ku sheekayna ma ogaada saana bulshadun koonfurta degan hadii sinatin lan taariikh la qiimo leh una lan maala yani arintis muqaadaran lan shicib idisi awlaadis la ka kaay hadii si dhimada ma leeraan lan muslim ahay dhimadi lanki uu waqti giliina xilligun oo European ka saacadiyo 12 ama lisahmin ma wala gudoomi Abdulqaadir Taalib nah fadhiisi aneen studio hay fadhiisi anoo xilligun shaqo ku kooy oo runtii dareemo kortan culayska isaarna geeka dhan shaqeeyay mayba yani runtii noogohana oo waana markhaati ku nagadaane antum bi'alamu amuru dunyakum ilaahi adduunyadun walay ka dhiyo uni macnaha bashare uni nool lanki hortaana dhimada oo taariikh leh maxaqiraan uni sheegan lanki uni sheego waa inay ogaadasaan isuuna maxaqiraan laakiin lan idisle ka filan hay Cabdullaahi Maxamed Idris Leesto runtii may ka jaray dadkii markii oo hadana salbalaar oo kan weerarti koorkooya ka jaray dadkii diidi oo runtii maran kasta yani qowleysata ma hayn runtii ma hayn dadkii oo aruntun ku diidi oo duurka galay oo ku dagaalamay aarareeda dadkii oo yani figures ya ka jaray runtii waana may leeyahay runtii taariikh weyn
oo base leh oo runtii arkiifyada oo dadkun qoomiyadun degin meel oo koonfurta degaayaan arkiifyada oo ka jar runtii Cabdullaahi Leesta okay chief sigaarayda maashada runtii way italan taariikh badan haaya lan way dad badan hala shaqeey oo maaragtay taariikhiyahana siyaasiyiin ka ku jeedan koonfurta Soomaaliya ka ahaan koonfur galbeed Cabdullaahi Maxamed Idris way la ka tiriya Leesto inta badan inay lan kulul maaragtay oo afkaar adag oo maaragtay hadalshi aad u kululay haddana runtii videogaas aad sheega haysto waqtigii 91 oo soo roogo Baydhabo runtii way ka hadal qiimo badan way aree ani wadankii ka naqdi wadankii roogay wadankii ka dhimadee dadka kiikay yaan danay macna daraan intee la agyaa videogaas ani inshallah igeega inta badan dhowr jeer yaa fiirsaday runtii lan way hay eedna adaga hay laakiin videos badan fiir lan way hat macna lan oo way hay oo maartay oo runtii ilinta ku koyti marka meeka tilmaamaas lama dabeecad runtii oo silan adag yaa laga tilmaamay oo hada adkaay laakiin videos badan fiirsaday runtii way batay dareenka marka seeka sharaxa karto dareen shay ma oo shil dugunay dareenkaas oo marka oo sagaashan iyo dadka dad badan way ka tilmaamaan adag oo hadal shay kululay in America for a while. I come back. I like my cows. I like. I like here. Many people they like to go outside Canada, America, or whatever, but I don't like. I want to stay here, die here. Live that make life here. runtii Cabdullaahi xalay oo kalena ma intaasiyay langleero abukaat Khaliif Ahmed Ducaale lawyer wiin ahay 1980 diblomacy wiin ahay Sweden degin Stockholm runtii ay weydii saaxiibeena ururkan iskala jarn oo leero manifesto 2 Dr. Sadiq iyo usiyo abtidooni badan yani may ku sheekayay heybad lankaas lahay qoran yani may eray may hay eray Cabdullaahi Leesta nin ku faanay dhaqankiisa yani fiiri afkiye ka faanay lan qarsan ma hayna lan yani hamiin ba meel isu roog markaado ma hayna kasteeda yani may hay dadka farqo tiriska oo tilmaaman oo qowmiyadan matalaad saxda ah matalahay hatta hadii xelan hayna xilhaayo may hay lan ardaas dagaalamo runtaw lan may hay adag oo geese oo hadalo oo Soomaaliya dadkana ku muuqda taasna runtii waa is Ilaahay abuuri waaye يعني من اللي جبدان أفكارتيس ما يبقى له رنتي إدلن ليابي أنا مركزت كأرجع جري لنسخ ياها يا عبد الله يعني جيك هدي هذا دبعت سنت هذا نسيت ولو سهاي معنا ما يبغى أرنتاس نفتي أكتر وفضيلة إلهي بن آدم كسيه وآية قرآن واي كنت لنكي بخيل لما له قرابي يعني ما يبغى ليبن يرى إلهي سبحانه وتعالى ما يكلو أو رنتي إدن كفيلها لان قلب فيلها هاي ولي الله أقول لي يابك لأن حسوا صدام يكون مذا هذا مركين مدد دجالك يا ودي وذو وايتي جدي أما جري وفدي وفود إد عالمين أو ملا مختار كجري أو إسحاق ملا كجري أو لاستا كجري أو شيء إبراهيم كجري لغاي وفد ساس عالمي مركومين كوين إيست أفريقيا ونين ما هي ندتكي أو فورين بوليسي أو إيست أفريقيا دجال ماي ديدا إني هي ذو عالمي دولكاس هذا دولود إيران سالبلار ولا سونين كدجال ماني مركا ما هاي dadkii oo eedan caawi dadka Australian bahay qaxootiga hay hay'ado dadka seeday wala ku qaaday hay dadka qaxootiyada indooda hay wal badan oo runtii oo sabab oo bulshada u baahanayde baahadi oo ku shaqeeyay marka dambena may banagatay in uu dhisno jaalid in xubanayti East Africa oo gudoomiye ku nagatay faamay oo hadda dhimatay hostage hada jartay oo daraad Manchester ka dhimatay ana si khaas ah ziyaaradii dadka qiimagaas leena markasta uu wareejiyaan oo seedaan sida Dr. Abdi Muuse Mayo Xasan Maxamed Nuur Shaati gadu soo nooli ansaani lan kale Rasul Maalin ee reerjay qabriye saani walaas lama soo biyaane idoo isku rookon raaxaysa ko lama soo biyaane in bulshadu uu tusiina dadka aqrabiga wal tari bulshadu walan tari marka Cabdullaahi Sharif Siidka Sharif Cabdullaahi
ومثقف هاي متعلم هاي ومركز من السفير كنا قد سو أفريقيا ودمنا دونا محمد عبد القادر الزوبي أو يسين كساسا المزوبي لكن وين إيه لان أول يرو دكتور عبد الرشيد لان يرو عبد القادر نور أو برا وتوني إيه وهنتي يسون بروفيسور هاي نيروبي يونيفرسيتي والكده كاي وروينا صوبني كستة إيست أفريقيا دون حمبارسن معنا هي العالمية اللي كله ماني والبدن حتى كديني maamulkaas albalaar oo dagaalka la jarnay in ay caawiyaan ama dheg nuglaadaan runtii shaqooyin waa meex qobanay oo runtii ilaahay leey lagu fado inuu isna abaal maray laakiin bulshadan oo damboytona taariikh nagadaas marka leesta meelana ilaahay qabriye waasan ka dhika lan oo may hay on ku noogana in dadkan horumar soo biyaan yani markasta hana weeri jaray runtii aniga xataa Abdulqaadir ma xasuusana in oo marar badan hana weerin eray warnimayahow dad oo creative fighting dad oo bulshadun yani mayba ku muuqdeetin dalkun dad iman baahanya in nidaam baahanya markastana mayba dhiibiday aara malan qabeelna mahayn runtii ma haylan oo benzani runtii leestan ma ila kore reemaydi silees ma ku dhiman reer koonfurta Soomaaliya ma ku dhiman digil marfim ku dhiman benzaniinta Soomaalida dhan ku dhimadi waan ilaahay naxariisa unina mayba rajeene in ilaahay ku tugan in baadijeenin fisnayna oo runtii يعني عبادة فعلاً كدمنا وأنا رنتي ونتعرق ذا مقريانا وأنا شاعن هاليدة تكون هالجميع. أوكي عبد القادر محمد أحمد جيب سجارة إذا ما سنتا جب دي برنامج كا ما يحكي جب ياسا تعرف نولد كي عبد الله محمد إدريس ليس الله نحرسه قبل شيء لا واسعية ما يحكي جب ياسا معنا إيو ما يكرر ترتار ماسا دات كه كوجيد كونفرت الصومالي سياسيين تيجي دمان أنت maaragtay markasta iska mashquul yaashatanaha guud ee dadka koonfurta Soomaaliya ku yeedka anaha koonfur galbeed ana dadkum uu ku dalnay may baan sheegay in premier wala raw jara korto in oolankii shaqo faylan qobadi oo bulshadu aan khadimi oo mustaqbal ku shaqeey in dadka kale la mid nagana kasta in una nagana dad oo iska dariyo lankii walaalkanahay oo bulshadu walaan qobadi nooc walba haaday adkeela dhaaday lankala dhaaday laakiin adikoo turjumay adika caawiyay mustaqbalka ulaadaan dooday leesta say dadka ma ka jarata United States of America yani visa oo diblomaatiya qaadeen isla jarni ana intii kasta la shaqeeyay yani seedahay meel kasta ku wareegeen dadka noocaas may fadaanay oo figuraska in lan hilmaagna ko in book taariikhdii la qoro suubin arkiivi mustaqbaliyan una lana oo weyn oo dhaqankaani dhulkaan wala ka bahow taariikhda dadkaani dhulkun dadkan halgami dadkan siyaasiyiinta lan hilmaagna generation ka dambe kooyo inuu nagadan runtii wadankuna dadka nool Abdulqaadir Sweden meeragaas qof beesada la ka magacaabay qof jidka la ka magacaabay qof yani iskool la ka magacaabay qof may bua may leeyahay maalin usmaarne lan hambalyaay qof jaamacad la ka magacaabay intaasna may bua dadka bulshada shaqadan qobday way service kan qobday Abdullahi Maxamed isi dadka la mid dadka dambe generation ka dambe oo mustaqbalka dadku hore doona dhiig iyo dadnimadii oo may ku fadaane inana saaqarna taariikhdii oo la sheega in oo nagadan dad base leh oo asalkan inuu dhung yani una lanka wala natari inuu erna lankaas lankaano ay awlaadis hata la si maamuus la si kasta hata mustaqbalka dambe ba yani kan wiina in dhulku degana nidaam sharci kala dambe madina suubina walyaalaha iyo ka adeegayaan hata in premier iyo lahaada yani waliyo dareema in ay awjo shaqaha qobadi una salmaan laga isma markuu idiseedana iyaal iyo madaw ku salaahani may in jeednay in uu shaqanayn qobadi in uu afkaan dhagankaana waqti qariib aan dooday leestana dadka mustawaas deeraa ka jara waana may ba fadaane in lan suubi taasiyad weyn oo in isku kooyaan dadka walgoradka deegaanka oo la ku sheekayo taariikhdiisa wal qobadiyay oo intu ku bileeran la si dadka noocaas shaqooyinka socdo gabagabadii islata muhiimad yaalata in leesto la ka magacaabo goob oo ka tirsan goobaha sida waxbarashada oo kale ama jid wadooyinka baydhabo ka yaalaan ama tuulaba la ka magacaabo ama maaragtay leen soo biyo maaragtay wala araw ceremony ama xaflad xasuuseed leen soo biyo maadaama uu sihay lan waqti badan hageli oona in helna runtii karaamadii ka filinayt in helna inkastoo waqtigu dambe dheegi in maaragtay maamulku runtii qiimeey oo daawadiisii wala la soo biyo laakiin karaamo ka mudan yahay in leen soo biyo
ولا كمان عودوين هذوها قبل ياس إن شاء الله والكست أو مارن لك حسوس ذكر عبد الله محمد يسلاست لنصوب وكنت مدني وأنا استاهل وأنا بلشدنا ما ينقداس نفتي كديشين نقداس يعني ما يبقى إن لان لك دي دولة هلكر أو والتاريخ صوبي مركنا ما يقابل إن لنصوبيو ميل جوب أو سلك حسوس ذو dadku silmadana saas amal ee mustaqbalyan gooblan suubi afgoy nagatay baraaw nagatay baareer nagatay kismaayo nagatay dhul ma jira dhul dadkaana degan weli ka noolin oo runtii dhibaato leh ka haysata ma weli asal ahaan ku muuqda marka dhulkaas oo dhan insha Allah taala mayba suubi doona dadka noocan oo leesta ku mid ay dadka kale oo la midaya mayba suubi doona meel ka xasuuso oo taariikh oo dadkan aafaartii ka dhumaan marka ilaahay ma sanata يا كاساي وينو هذا لاني تاريخ نورليت قال لنا حريصدي عبد الله محمد إدريس أو شالي أو تاريخ هايتي لبعتني اللح باللحات لما تكون لبعتني لما تكون مجال بص لنا حريصدي هي الذي دمان يو تولك يو سكتبي يو خرابدي يو مارتي دمان كفر بدي لنا لنا حريصدي استمر على سينكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي نحرص لنك صلاة